maanta waxaynu soo gaarnay cashar kale oo ku saabsan nebiyadii hore mid kamid ah kuwa ugu caansan kaasoo ah Ibrahim. Bible-ku wuxuu ugu yeedhaa Ibrahim saaxiibkii Ilaahay ama aabaha kuwa rumaysiga leh oo dhan. Ibrahim marka aad ereyga Ilaahay akhridid 300 oo jeer in ka badan ayaa Bible-ku magaciisa soo hadal qaaday. maanta waxaynu casharkan ku eegnaa laba waxyaalood oo kala ah sidii uu Ilaahay ugu yeedhay Ibrahim iyo sababtii uu Ilaahay ugu yeedhay Ibrahim. inta aynan gudagelin labada arrimood waxaa muhiim ah inaynu marka hore ogaano in magaca Ibrahim uusan ahayn magaciisu markii hore Ibrahim laakiinse la oran jiray Abraham. cashar kale ayaynu waxaan ku baran doonaa sababta uu Ilaahay uga bedelay magacii hore ee Ibrahim oo isagu u bixiyay Abraham oo isaga u bixiyay Ibrahim. waxaynu kala ognahay in Ibrahim uu ka dhashay qabiilka ama uu ka soo farcamay Shem. saddexdii wiil ee Nabi Nuux dhalay waxay kala ahaayeen Shem iyo Ham iyo Yafet. marka isagu wuxuu ka soo farcamay Shem. Ibrahim aabihii waxaa la oran jiray Terah. haddaynu ereyga Ilaahay akhrino kitaabka ugu horeeya Towreedda ee bilowgii cutubka 11aad aayadda 27aad waxay odhanaysaa kuwani waa farcankii Terah. Terah wuxuu dhalay Abraham iyo Nahor iyo Haran. Haranna wuxuu dhalay Lut. marka walaalayaal waxaynu arkaynaa Lut inuu ahaa wiilkii Haran oo ahaa Ibrahim walaalkii. marka Ibrahim wuxuu Lut u ahaa adeer buu ahaa. Haran isaga oo yar ayuu dhintay ama Lut oo yar ayuu aabihii dhintay. Haran dhintay sidaa daraadeed Ibrahim Lut waxa soo koriyay Ibrahim baa soo koriyay oo aabbo oo kale u ahaa. Saaray ayay ahayd xaaskii Ibrahim. ereyga Ilaahay waxa ku qoran isla kitaabka bilowgii cutubka 11aad aayadda 30aad waxa ku qoran Saarayna waxay ahayd madhalays ilmana ma ay dhalin. sidaa daraadeed Saara waxay ahayd xaaskii Ibrahim oo ahayd sida Bible-ku halkan ku sheegayo inay ahayd madhalays oo aanay caruur lahayn. wadanka uu Ibrahim ka yimi ama ka soo jeedo waxa la oran jiray Ur tii reer Kaldiyan oo hadda ku taala wadanka loo yaqaano Iraq. halkaas oo ah haddaynu casharadii hore aynu ku noqono meeshii uu ninkii la oran jiray Namrud ee xoogga weynaa iyo qoomkiisii ay ka dhiseen taaladii la oran jiray Babel taas oo uu isku dayay inuu dadka adduunka oo dhan uu ka dhigo kuwa midaysan oo hal luqad wada leh. markii dambena Ilaahay uu kuwa ku riday inay isfahmi waayaan oo afafkoodii kala duway. waxaynu kaloo Bible-ka ka akhrinaa in Ibrahim iyo qoladiisii iyo farcankiisii iyo quruntiisii hore ay ahaayeen dad caabudo sanamyo oo aan Ilaahay aqoon. haddaba maalin maalmaha kamid ah ayuu Ilaahay u muuqday Ibrahim oo uu u yeedhay. beriga haddaad Bible-ka akhridid Ilaahay si toosa ayuu ugu muuqan jiray nebiyada ama dadka uu doonayay inuu la hadlo. sababtaasina waxa weeye beriga ma ay jirin kitaabo qoran oo ereyga Ilaahay oo qoran oo dadka ama Soomaalidu saytaada lagu soo dejiyay ama ay dadku ereyga Ilaahay ka akhristaan. sidaa daraadeed Ilaahay uu isu muujin jiray dadka. ama malaa'igaha ugu muuqdo ama si kale ha u soo diro ama si kale ha ugu muuqdo laakiin Ilaahay ayaa u muuqday Ibrahim. laakiinse maanta taa way ka duwan tahay oo ma aragno malaa'iga dadka la hadlaya ama ma aragno kitaab ma garanaysaa Ilaahay oo sidii Muuse iyo Ibrahim uu ula hadlay toos ula hadlaya. waayo maanta waxaynu haysanaa ereyga Ilaahay runta. sidaa daraadeed Ilaahay wuxuu inaga rabo oo dhan waxay ku qoran yihiin ereygiisa. halka ayaynu ereygiisa ka akhrisan karnaa. halka ayaynu ereygiisa ka adeeci karnaa oo waxa uu inagu leeyahay ka fahmi karnaa. marka Ilaahay waxa Bible-ku ku qoran wuxuu u muuqday Ibrahim. Ilaahay muxuu ku yiri Ibrahim waxa ku qoran kitaabka Towreedda buugga bilowgii cutubka 12aad aayadda 1aad waxa ku qoran Rabbigu wuxuu Abraham ku yiri ka tag wadankaaga iyo xigaalkaaga iyo reerka aabbaha oo dalka aan ku tusi doono u kac.
ilaahay wuxuu ibraahim u sheegay inuu ka tago xigaalkiisa inuu ka tago wadankiisa inuu ka tago reerkiisa oo uu tago wadan uu tusi doono haddii bini aadanimo loo fiiriyo ama sida aynu bini aadan u fikirno waa wax aad iyo aad u adag inuu qofku hal mar ka tago oo uu gooyo xiriirkii uu la lahaa reerkiisa wadankiisa iyo noloshiisii meeshuu ku lahaa laakiinse ilaahay qorshe weyn oo uu ku barakaynayo ibraahim ayuu u hayay haddaba waa maxay sababta uu ilaahay uga doonay inuu ibraahim ka tago wadankiisii iyo xigaalkiisii iyo qaraabadiisii oo uu tago meel kale ereyga ilaahay ayaa inoo sii faahfaahinaya kitaabka towreedda buugga bilowgii cutubka 12 aayadaha 1 ilaa 3 waxaa ku qoran rabbigu wuxuu abraam ku yidhi ka tag wadankaaga iyo xigaalkaaga iyo reerka aabbahaaba oo dalka aan ku tusi doono u kac oo quruun weyn baan kaa dhigi doonaa oo waan ku barakadayn doonaa magacaagana waan weynayn doonaa oo waxaad noqon doontaa barako oo waxaan barakayn doonaa kuwa kuu duceeya oo kuwa ku habaarana waan habaari doonaa oo qabiilooyinka oo dhulka oo dhammu adigay kugu barakoobi doonaan ilaahay wuxuu hayay ibraahim qorsho aad iyo aad u weyn wuxuuna doonayay in uu ka soo dhex saaro quruun weyn oo barako u noqota quruumaha adduunka oo dhan quruuntaas oo marka dambena uu ka soo bixi doonay badbaadiyihii la ballan qaaday ee aakhirka u dhiman doonay ama allabariga u noqon doonay dembiyada bini aadanka marka ilaahay barakada ayuu u hayay laakiinse waxa weeye su'aashu waxa weeye ilaahay wuu la hadlay oo kaliya ibraahim ilaahay muu tusin oo riyo kuma tusin wadanka uu tegayo siduu u barwaaqaysan yahay sharaxaad kale oo dheer umuu soo gelin hadal unbuu u sheegay wuxuu yidhi ibraahimow ka tag wadankaaga quruuntaada guriga aabbaha waana ku barakayn doonaa dadka adduunka oo dhan barakaan kaaga dhig doonaa marka sidaa samee marka waxa weeye ibraahim muxuu sameeyey ibraahim ilaahay miyuu adeecay mise sidee buu uga jawaabay ereygii ilaahay isla ereygii ilaahay ayaynu ka akhriynaa wixii uu abraam kaga jawaabay ereyga ilaahay isla ama doonisti dalbashadii uu ilaahay ka dalbaday inuu ka tago wadankiisii oo wadan aanu aqoon tago iyo ballanqaadkiisii ahaa inuu quruun weyn ka dhigi doono kitaabka towreedda isla bilowgii cutubka 12 aayadaha 4 iyo ilaa 5 ayaan ku arkaynaa sidii ibraahim uga jawaabay hadalkii ama dalbashadii ilaahay waxaa ku qoran markaasaa abraam tegey sidii rabbigu ku yidhi luudna wuu raacay abraam 75 sannadood buu jiray markuu haaraan ka tegey abraamna wuxuu ka haystay naagtiisii saaray iyo luud oo ahaa wiilkii walaalkiis iyo xoolahoodii ay urursadeen oo dhan iyo dadkii haaraan ay ka heleen oo dhan kolkaasay u kaceen dalkii kancaan oo waxay yimaadeen dalkii kancaan muxuu ibraahim u adeecay ereyga ilaahay waayo ibraahim wuxuu ku kalsoonaa ereyga ilaahay ayuu si fiican ugu kalsoonaa inkastoo uusan ogeyn meesha uu tegayo iyo waxa ka horeeya iyo inkastoo uu wadankiisii ka tegayay xigaalkiisii ka tegayay oo noloshiisii ka tegayay haddana wuxuu ku kalsoonaa ilaahay wuxuu tusay rumaysi uu ku qabo ilaahay rumaysigiisii daraaddiisna ilaahay wuxuu geeyey isaga iyo xaaskiisii iyo dadkii uu watay oo dhan wadankii kancaan ayuu geeyey ee uu ballan qaaday isla kitaabka haddaynu aayadaha sii wadno aayadaha 6 ilaa 7 waxaa ku qoran abraamna dalkii buu dhex maray ilaa meeshii la odhan jiray shekem iyo tan iyo geedkii moore waqtigaasna reer kancaan dalkay joogeen oo ilaah baa abraam u muuqday oo ku yidhi dalkan farcankaagaan siin doonaa kolkaasuu meeshaas meel alla bari uga dhisay rabbigii u muuqday walaalayaal ilaahay mar kale ayuu u muuqday abraam oo ballantiisii markii uu tegey wadankii oo uu ilaahay adeecay oo uu wadankii ilaahay ugu ballan qaaday uu tegey ilaahay ayaa mar kale u muuqday abraam
wuxuu ugu ballan qaaday inuu ka dhigi doono isaga quruun cusub ilaahay wuxuu ilaahay u ballan qaaday isaga inuu siin doono waddan cusub haddii aynu fiirino qalbiga bini aadanka ama sida bini aadanku u arko wax way adag tahay in tan inaynu fahanno waayo waddanka waxa iska lahaa dad kale ayaa deganaa dad la oran jiray reer Kancaan ayaa deganaa oo quruun dhan baa deganayd marka sidee ayaa Abraham oo 75 jira oo xaaskiisuna madhalaysa sidee bay u dhaxli kareen haddii bini aadan xigmadda bini aadanka laga fikiro waddan ay dad kala degan yihiin oo ay ku tarmeen waa anigoo maanta la yiraahdo Cabdi Ducaale ka tag Soomaaliya oo waxa tagtaa Rwanda oo anigi xaaskayga kaliya aan nahay oo xagga tag oo waddankan dadka Rwandiisku degan yihiin adiga lahaan doona oo adiga iyo quruntaada ayaa dhaxli doona haddii bini aadan ahaan loo fikiro waxay noqonaysaa wax aan aqli galahayn laakiinse ilaahay waxa weeye waa ilaah weyn wax kasta wuu awoodaa kitaabka bilowga cutubka 13aad aayadaha 15 iyo 16 waxaynu ka akhrinaa waayo dhulka aad aragto oo dhan waxaan siin doonaa adiga iyo farcankaaga weligiin farcankaagana waxaan ka dhigi doonaa sida ciidda dhulka haddii nin ciidda dhulka tirin karo farcankaagana waa la tirin doonaa marka walaalayaal ilaahay miyuu Ibraahim u yeeray wixii uu ugu ballan qaaday miyuu waddankiisii uu ugu ballan qaaday miyuu isaga ka dhigay quruun weyn oo waddankii uu u ballan qaaday dhaxashay waxaynu ognahay ama ereyga Ilaahay ka baranaynaa in Ibraahim ay ka soo farcameen qurunta la yiraahdo Ibraaniyiinta ama Israa'iiliyiinta oo u noqday bini aadanka barako taas oo ay ka dhasheen nebiyo badan oo ereyga Ilaahay laynoogu soo dhiibay Ibraahim muxuu sameeyay haddaba markii uu meesha waddanka cusub tagay wixii ugu horeeyay Ibraahim sameeyay wuxuu ahaa inuu bixiyo allabari sidii ay u bixiyeen allabariga Haabil sidii uu bixiyay allabariga Seed sidii uu Nabi Nuux allabariga u bixiyay ayaa waxa uu Ibraahim bixiyay allabari si uu Ilaahay ugu mahadno sidii uu Ilaahay ugu toobad keeno allabariga muxuu u bixiyay allabari la qalayo ereyga Ilaahay kitaabka Cibraaniyada cutubka 9aad aayadda 22aad waxa ku qoran dhiig daadin la'aan dambi dhaaf ma jiro Ibraahim wuxuu ogaa inuu bini aadan yahay inuu dambiile yahay sida kaliya ee Ilaahay markaa aqbali karay ee uu dambiga lagu saamixi karay waxay ahayd in la qalo xawayaan aan in lahayn waan ognahay waxay ka soo bilaabatay aadan iyo xaawo markay dambaabeen Bible-ka waxa ku qoran waxay is arkeen iyaga oo qaawan waxay arkeen iyaga oo ceeb leh Ilaahay ceebtoodii iyo dambigoodii wuxuu ku daboolay inuu u qalay waxaan ka wadaa neef inuu u qalay oo Ilaahay ayaa allabari ugu horeeyay bixiyay kaas oo uu dambigoodiina dhiigga u daadiyay jirkoodiina uu ku daboolay haragii xawayaanka oo ay ceebtoodii iyo qaawanaantoodii ay ku dabooleen laakiinse allabarigani wuxuu u ahaa sawir oo uu shabahayay allabariga weyn ee iman doona kaas oo badbaadiyaha u dhiman doonay dembiyada dadka kaas oo Bible-ka ay ku qoran tahay in maalmaha kamida isla markii jannada lagu jirayba laga soo saaray aadan iyo xaawaba Ilaahay wuxuu shaydaankii ku yiri in maalmaha kamida mid ka dhashay naag ama qof dumara uu imaan doono oo uu shaydaanka ka adkaan doono kaas oo aan in lahayn oo noqon doona allabari kama dambaysa marka Ibraahim wuxuu qalay waddankii markuu yimi uu Ilaahay isagoo ka waxyi ahaan u soo tusaya badbaadiyaha iman doona si ficila ayaa wuxuu qalay neef allabariya oo Ilaahay ugu mahad celiyay oo uu tusay sida uu waxyi ugu sii yahay badbaadiyaha iman doona marka walaalayaal waxaynu arkaynaa aaminimada Ilaahay iyo rumaysiga Abraham ayaynu halkan ka arkaynaa kitaabka bilowga cutubka 12aad aayadaha 2 ilaa 3 waxa ku qoran Rabbigu wuxuu Abraham ku yiri ka tag waddankaaga iyo xigaalkaaga iyo reerka aabaha oo dalka aan ku tusi doono u kac oo quruun weyn man ka dhigi doonaa
oo waan ku barakadayn doonaa magacaagana waa weynayn doonaa oo waxaad noqon doontaa barako muxuu ibraahim uga tegay waddankiisii waayo ilaahay wuxuu ugu ballan qaaday inuu isaga ilaahay ka dhigi doono quruun weyn oo barako u noqon doonta quruumaha oo dhan quruuntaas oo ay ka dhalan doonaan nebiyo badan oo ilaahay soo diray quruuntaas nebiyadaas oo uu ereyga ilaahay u soo dheebi doono aakhirkana quruunta waxaa ka soo bixi doona badbaadiyaha adduunka kaas oo ah sayid ciise masiix oo ah kii ugu dambeeyey allabari ugu dambeeyey ee uu ilaahay dembigii jannada aadan iyo xaawo dartood aynu uga soo baxnay iyo colaadii inaga iyo ilaahay inaga dhex dhalatay mid isagu soo badi doona oo ilaahay dib inoola heshiisiin doona oo aynu isaga daraadeen mar kale ilaahay dib ugu tegi doono oo aynu ku baryi karno oo aynu ku xidhiidh fiican kula yeelan karno walaalayaal waa mahadsantihiin inta aad maanta nala joogteen ee aynu baranaynay sababtii uu ilaahay ugu yeedhay ibraahim iyo sidii waxaan idinkaga tegayaa aayaddan muhiimka ee aynu soo akhrinay ee ku taalla towreedda kitaabka bilowgii cutubka 12aad aayadaha 2 ilaa 3 oo odhanaya rabbigu wuxuu abraaham ku yidhi ka tag waddankaaga iyo xigaalkaaga iyo reerka aabbahaaba oo dalka aan ku tusi doono u kac oo quruun weyn baan kaa dhigi doonaa oo waan ku barakadayn doonaa magacaanagana waan weynayn doonaa oo waxaad noqon doontaa barako waa mahadsantihiin ilaahayna ha idin barakeeyo